إلا 5 سنة روب معنا هني حير يرد أمو إلا 5 سنة 6 سنة روب للشباب وحوله محودة محرق الله غفره كمدة 5 سنة بدان وحرنت قشن كاسان لو غرايا dadkii miyiga uu soo baxaya wuxuu soo raadsanayaa aniga casas oo kale noqoto mantaqana nin baa fadhigiisa inta ka carray gurigiisa ka carraa meel nolol u raadsaday dadka saas ku nool yahay marka mid hadda qoysku uu ku tirsan yahayna waa mar hel mar waay markii wax la helana waa la karsadaa markii wax la waayana waa la iska qatamaayo hadana wixii kale to Ilaahay keena la galiya musil lagu soo waxayaba loo soo jaqfuleen deyn baa lagu sii qaadan baqaaraha la tagaas aldii waa in siinayna maqaaradina hadda waa la aadi waay xoolihiina ay naga dhamaysay beerihiina laga tabcan waayay webiga biyo la'aan uu noqday biyo iska gurayaan faqadarada maalin walba ilmaha way u dhintaan hooyada way u dhimataa xad dhaafna waay abaarta maadaama ay 5 sano iyo wax ka badan ay fooda la sii galayso. In Somalia, it's a drought, and for the last 5 years, communities lost their livestock and their livelihoods. We are now in the middle of a crisis where we have 5 consecutive delayed rain seasons. 1 million people have been displaced and joined the IDP camps in the town. It goes beyond their capabilities and capacities to respond. marka dadka asaga hooy male biyo male musqul male wax la cuno male nafaqa darada ay cagabararka wadiyaabaysa hay'adaha samafalka oo arliga wax ka qabtana dadkii markuu tirada ka batay oo intaas oo kun oo qof ay iskugu imaaday deegaankii dhibaatooyinka ay bateen hay'ad kasta oo samafal ah oo meesha wax ka qabanaysa say wax u gaarsiisay laada. SOMREP is a consortium of now 8 organizations that came together for the long-term resilience building activities. SOMREP has been implementing various resilience programming, building the capacities of the communities, and also communities were being set up for infrastructures like water systems, construction of permanent canals. On top of that, there has been helped communities on VSLA. VSLA is Village Saving Loan Association. So those are some of the key activities under the SOMREP program. When the drought came over the last 4 to 5 years, a crisis modifier component has been added into the program. Crisis modifier, it is a contingency fund that helps SOMREP to help communities maintain their resilience again that we have been building over the years. It is first response for 3 months in the middle of a crisis, and it is a form of emergency cash transfer. Each person was receiving $84 per month to do bush clearing, irrigating lands. In people getting cash in returns, they also impacting the communities to have good canals in their farms, new lands for the farming. Those are the key impacts. In terms of the unconditional cash transfer, it has helped all people, female-headed households, those who are very ill, children with malnutrition, women that are maybe pregnant and lactating. So those people may have died because of hunger and diseases. You can respond to a drought in so many ways, but the best way we have witnessed is the cash component, where people can have their own decisions. يومي $4 يقعدنا cash bag. ده حسب لود بالغ شقي وقرتدنا. waxna beertan ku maalgashanay oo kanaalkan ku dhisanay ku hagaagsanay bariyaas marka waa lagu indhakacsaday 3 waqti waa dad arkeed wax shidanay dad 2 waqti wax shitaad arki waa lagu indhakacsaday waxaan ugu qabsanay shidaalka oolyada dunta matoorada wixii markaas tabac anaga kor soo qaadaya ayay lacagtaas noo gashay caruurtan waxay cunaan ugu gatay wixii deynaha la igu lahaa iskaga bixiyay horta qardeed waxaan qabanay shaqada qardeed dhulkaan waa dhulka la qardeeyay beertan waa beerta la qardeeyay dad macnaha liidan waxay liidana waxa u deynay lacag tabaruca jiray macnaha lagu taageero ayaga oo lagu caawiyo dadka liidan taas ayagan u soconay wixii lacag xoog la shaqaysan kara beertan ku soo wajahan say xoogooda ugu macnaha meesha u galiyaan cash fogan u helaan dadka marka saas wax u qabsadeen maadaama qardadii faa'iido keento xaq sanduuqa lacagta iyo kaydka amaahda ayay naga saacideysay waa ku faa'iidnay waan ku fiicnayn hay'adda lafteeda abaarta markay gashay way naga gashay waxaan daawo ku gatay iyo waxaan baaritaan aan ku taga aan laahay lacagta iyada soo dhacday markay soo dhacday markiiba baaritaan ayaan ku aaday
waxna isku soo baaray oo daawooyin iyo sharoobooyin aan ku soo gatay waxna carruurtaan raashin ugu soo gato saddexdaas bilood marka oo aan qaadanay ilmihiiyaa ku raystay waxaa ku raystay duunyada ku raysatay oo waxa weeye weel la dhaqan la siiyaa wax la siiyaaba wax laga siinayay ilmihii iskuulka ku raystay oo iskuulka wax lagu baraayo oo iskuulka gaari la'aaba waxa weeye wax loo karinayay marka saddexda bilood oo aan ka qaadanaynay dad soo kaagacaanayn Crisis Border Fire is a window of hope. People utilize their positive coping mechanisms. They can make a decision. Their purchasing power has been enhanced. That helps their family to withstand the shocks of the droughts.